waxaa jira dabeecado ay dumarku ka eegaan nimanka, kuwaas oo ugu dambeyn keeni doona inay u doortaan kii ay nolosha la wadaagi lahaayeen. waxyaabo ayaa jira ay ku ogaan karaan dumarka haddii uu ninku sax ku yahay ayaga. haddii aad lamaane haysato aadna ku aragto calaamadahan soo socdo, marna haska fasixin kaas. nambarka 1 waa qof diin leh. qof aan diin lahayn la jirkiisa wax faa'iido ah kuma lahan adiga. nambar 2 wuu ku ixtiraamaa adiga. jacaylku waa waxa ugu horeeya ay gabdhuhu raadiyaan, sidaasoo ay tahay badankood waxay iloobaan in ixtiraamku sidoo kale uu yahay shay muhiim ah. ninka qiimaha badan wuu ku ixtiraami doonaa adiga, meel walba wuu ka ixtiraami doonaa shakhsiyadaada, qiimahaaga, dareemahaaga, sidoo kalena noloshaada gaarka ah. nambarka 3 waa ku daacad adiga. daacadnimadu waa aasaaska xiriirka. hadduusan daacad ahayn, xiriirkiina meel ma gaari doono. 4 mar waliba uu kaa dhoola cadaysiin karaa adiga. si kastood uga xanaaqsan tahay isaga, waa qof kaa dhoola cadaysiin kara. qofkan uma baxanaaqsanaan kartid muddo dheer. markaad haysato qofkan oo kale, si otomaatig ah ayaad isaga faraxsanaataa, noloshaadana waa mid aad kuugma adiga. nambarka 5 waa qof naxariis badan. ma aha nin daciif ah, isagoo xooggan ayuu haddana naxariis badan yahay. nambarka 6 wuu ku taageeraa adiga. xitaa ha ahaato inaad u laabato waxbarashadaada si aad usoo dhammaysato, ninka wanaagsan wuu kugu taageeri doonaa riyooyinkaaga nolosha. marnaba niyadda kaama dilaayo adiga, ama kuma dareensiinayo inaad tahay qof aan wax samayn karin. wuu ku garab joogayaa tallaabo kastoo aad rabto inaad qaado. guushaada wuu ku faanaa. guuldaro markay kugu dhacdana niyadda ayuu kuu qurxiyaa. nambarka 7 wuxuu si aad ugu dadaalaa siduu ku kasban lahaa aaminaadaada. ninka wanaagsan wuxuu jecel yahay xiriirkiisa inaad kalsooni ka hesho. aaminaad la'aanna xiriir ma jiraayo. wuxuu og yahay aaminaadu inaan si fudud lagu helayn ee loo baahan yahay in la kasbado, kadibna ay tahay in la ilaalsado oo aan la jebin aaminaadaas. nambarka 8 mar waliba wuxuu ku dareensiyaa inaad qurux badan tahay. wuxuu fahamsan yahay si aad u dareento inaad qurux badan tahay keliya uma baahna erayo la dhaho. sidoo kalena aragtidiisa iyo dareenkiisa ayuu kugu dareensiyaa inaad tahay qof qurux badan. wuxuu ku xusuusiyaa markasta inaad tahay qof soo jiidasho leh oo isaga soo jiidata. marka aad qofku jeceshahay qofka dhabta ah ee uu yahay, wax walba qofkaas ku saabsan way kuu qurux badan yihiin adiga. nambarka 9 ma ahan qof naftiisa un ka fikira. aasaaska xiriir walba waa balan oofinta. hadduuna mid ka mid ah lamaanaha diyaar u ahayn inuu lamaankiisa dhexda kula kulmo, xiriirkaas waa mid burburi doona. haddii uu ninku mararka qaar baahidaada ka hormarin karo tiisa, taasi waa calaamad sheegaysa inuu yahay mid u qalma in la sii haysto. wuxuu diyaar u yahay inuu adiga iyo xiriirkiina u huro waxyaabo badan. nambarka 10 waa qof damac badan, mustaqbalkiinana ka fikiro. ninkan wuxuu ku dadaalaa siduu u rumayn lahaa riyooyinkiisa iyo kuwaagaba. nambarka 11 wax waliba wuu kuu sheegaa adiga. haddii uu nin kuu sheegi karo wax kastoo noloshiisa ku saabsan, ninkaas waa mid si xad dhaaf ah kuugu kalsoon adiga. ugu dambeyn wuu ku garab joogaa waqtiyadaada xunxun iyo waqtiyadaada farxaddaba. wuxuu diyaar u yahay inuu kula qaybsado wax kastoo adiga kusoo wajaha. waxaan rajaynayaa in muuqaalkan idin caawin doono. haddii aad ka heshay muuqaalkan, like sii. haddii aad naga cusub tahayna nagu soo biir oo subscribe dheh channelkeena. insha Allah intil muuqaalkeena xiga waxaan idin kaga tagay salaam.